madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa magacaabay guddiga farsamada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka Galmudug iyadoo dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya iyaguna magacaabeen guddi ka kooban ilaa 13 xubnood. Qoraalkan ka soo baxay madaxa xukuumadda Galmudug ayaa lagu magacaabay guddigaas oo ka kooban 11 xubnood waxaana la sheegay inay ku saleysan yihiin heshiiska ay wada galeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Galmudug. magacaabistan ayaa ka dambeysay xilli khilaaf xooggan uu soo kala dhex galay maamul goboleedka Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya. shacabka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa aragtidooda ka dhiibtay siday u arkaan khilaafkan soo kala dhex galay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Sunna. xalku wuxuu yahay dastuurka federaalka la raacaya oo dhigaya dowladdu inay wixii tasiiraad la timaado qodobka 120aad ee dastuurka federaalka ah ee dowladda aan ka laacnanay inay u hoggaansanaato ayaa wuxuu dhigayaa inay xaq u leeyihiin maamulada dowlad goboleedyada inay soo magacaabaan guddigooda farsamo cid looga amar qaadanaya damba jiri maydo dowladda oo hoggaansanaato qodobka 120aad ee dastuurka federaalka iyo kan 29aad ee dowlad goboleedka haddaan ku bilaabo aragtidayda run ahaantii waxaan filayaa Soomaaliya wacyiga ka jira especially marka la yimaado Galmudug waa meelaha ugu sii liita. Galmudug in badan 4 sano oo hore ay dibdhac lugaha kula jirtay dibdhac kalena ma xamili karto mana qaada karto. aragti ahaan waxaan taageersanahay guddigii hore ee dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha ay soo magacaawday raalin oo ka ahay madaxweynihii maamulka Galmudug. waxaan dhihi lahaay guddiga xalal lagu dhawaaqay ee ka yimid garabka Al-Sunna gaar ahaan madaxa xukuumadda Sheekh Shaakir xagiisa waxaan dhihi lahaay haddii tabasho jirto wadooyin loo mari karo in lagu xalliyo ayaa dhici karta ama la heli karaa. maantay in midi lagu taago waxaa ka wacan in la isu yimaado la wada fariisto laga wada hadlo wixii tabasho ah. magacaygu waa Cabdisalaan Maxamuud Xuseen waxaan aniga aan isleeyahay labadan guddi oo la soo kala magacaabay dowladda iyo maamulka Galmudug ay soo magacaabeen waxaan isleeyahay marka aad fiirido dastuurka Galmudug wuxuu dhigaa in dowlad goboleedka Galmudug ay u madax bannaan yihiin in ayagu maaragtay ay soo magacaawdaan guddiga doorashada marka waxaan leenahay waa ay soo daaheen waxay ahaydba in ma raranayad in maaragtay maamulka Galmudug ay soo magacaabaan waxaan leenahay dowladda faragelinta ay ku haydo maamulka Galmudug ka dhaafto oo loo madax banneeyo maamulka Galmudug. magacaygu waa Bishaar Daahir Xuseen Bishaar Al-Asad haddaan ra'yigayga arrintaas ka dhiibto waxaan u arkaa inay tahay khalkhal iyo fawdo horteed meeshaan Galmudug system bay lahayd madaxweyne ay lahayd hoggaan bay lahayd madaxweynihii oo kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxay soo dhiseen guddi reer Galmudug ah oo danaha Galmudug iyo soo xulista xildhibaanada iyo khilaaf bixintii ay u soo xilsaareen iyagoo sharcigii iyo systemkii Galmudug la marayo oo madaxweynihii iyo xukuumaddiisii la tashanayo. guddigan kale oo laga dhinac abuuray waxaan u arkaa khalad iyo fawdo horteed iyo curyaamin iyo isbaaro shacabka loo dhiganayo baan ra'yigayga u arkaa mana soo dhaweynayo nimanka wadaadada culimadeennina waxaan leenahay shacabka ha loo naxo oo shacabka dantiisa ha la fiiriyo oo deegaanka dantiisa ha la fiiriyo. Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Somali Cable TV Dhuusamareeb.